xaaladda dagaalka bariga dhexe ayaa cirka isku sii shareeraysa saacadba saacadda ka dambaysa. Abu Dubai oo ahayd goobtii ugu quruxda badnayd caawa waxa ay isku beddeshay goob ay dhimbilo iyo hoolacyo iyo gantaallo ay ku soo hoobanayaan. Iiraan waxa ay go'aan cad ku gaartay in ay burburin doonto Qatar, Abu Dubai, Bahrain, Sacuudi Arabiya iyo Ciraaq. Waxa ay wacad ku martay in si joogto ah gantaaladeeda ay halkaasi ugu hooban doonaan. Maadaama Israa'iil difaaceeda cirka uu aad u xoog badan yahay, Iiraan waxa ay ciyaaraysaa falsafad kale oo ah in ay burburiso waddamada kale ee Carabta ee ay saldhigyada ku leeyihiin ciidamada Maraykanka. Haddaba xilligan waxaa la soo tabinayaa in ay gantaallo sidii raxan u socda ay ku hoobanayaan Abu Dhabi iyo si la mid ah Sacuudi Arabiya oo laga maqlay dhowr qarax oo markaasi haleelay goobo bartilmaameed u ahaa dowladda Iiraan. Si la mid ah dowladda Iiraan ayaa beenisay in la dilay hogaamiyaheedii Khomeini. Si la midna saraakiisha ugu sarsareysay Iiraan ayaa la tilmaamayaa in ay ka badbaadeen dhowr gantaal oo ay Israa'iil ku bartilmaameedsatay. Iiraan waxay xaqiijisay in hogaamiyahooda Khomeini la geeyay goob xasilin ah isla markaana amnigiisa halkaasi lagu sugayo. Halka Iiraan ama Israa'iil baan iraahday iyo Maraykanka ay goor horeba sheegeen in Khomeini ay soo afjareen. Balse waxa ay u muuqataa in Maraykanka qaabkii uu qorsheynayay in uu howlgalkan ku soo gabagaboobo uu ka dheeraan karayo. Iiraan waxay heegan gelisay dhammaan hubkeedii ugu cuslaa, waxaana la isdhihi karaa dagaalkan waxa uu noqonayaa kii saddexaad oo bilaabanaya ama dagaalkii saddexaad ee adduunka oo bilow ah. Wararka kale ee xiisaha leh ayaa ah in gacanka Hormuz oo ah halka inta ugu badan wadamo badan ay ku tiirsanayeen dhoofintooda shidaalka in ay Iiraan ku dhawaaqday in gacankaasi uu xiran yahay ama bandow uu yahay. Soomaaliya oo ah halka inta ugu badan shidaalkeeda uu soo maro ama looga soo dhoofiyo waxaa laga dareemayaa isla xilligan aan kula hadlayo sarakac xooggan oo shidaalka ah. daqiiqad ayuu shidaalka Soomaaliya u sii kacayaa maadaama gacanka Hormuz ay ku dhawaaqday Iiraan in uu xiran yahay, isla markaana gantaallo iyo si la mid ah drones sida hubka ugu culculus ee Iiraan ay halkaasi geysay. Madaxweynaha Maraykanka Donald J. Trump indha ayaa ka soo haray ayaa la leeyahay maadaama uusan filanaynin in jug noocan oo kale ah uu kala kulmi karo dowladda Iiraan, maadaama Maraykanka dhowr saldhig oo uu ku leeyahay Bahrain, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Sacuudiga laguna daray Ciraaq si weyn loo bartilmaameedsaday isla markaana jab xooggan la gaarsiiyay. Iiraan waxay qorsheynaysaa markan in ay weerarka u weeciso dhinaca badda oo ah halka ay doonayso in markaasi ay ku beegsato maraakiibta kala duwan ee Maraykanka oo ay diyaaradaha ay hubka culculus sida ee gudaha badweynta markaasi Atlantic ah taagan. Haddaba wax walba ee ka soo kordha xaaladda guud ee bariga dhexe si joogto ah ayaan halkan idinkula soo wadaagi doonaa.